isku soo noqo wanaagsan mar kale saaxiibayaal soo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti waliba ay ku tahay oo wanaagsan jimco wanaagsan maanta waa jimco caawana waxaa la baasan doonaa horyaalka adduunyada ugu xiisaha iyo xamaasadda badan soo dhawaada muuqaalkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan saadaaliya ayaa rabaa waxaa loo yaqaano big sixka kaalimaha ay kala geli doonaan xilli ciyaareedka cusub ee caawa bilaabo doono adiguna qaybta hoose fikirkaada nala wadaag maxay kula tahay kaalimaha ay kala geli doonaan kooxahan balse intaan muuqaalka gudaha u gelin magacaygu waa cabdul caagane waxaad daawanaysaa caagane podcast haddii ay tahay markaadii kugu horreysay waana soo booqato aan kaa codsanayna inaad pageka follow dhahdid lacagtaada waa u baahannahay soo u gaar muuqaalka meel sare haddii aad horey ila joogtay waa ku mahadsantaa la joogistaada sii sheergaray oo saaxiibada la wadaag soo dhawaada saaxiibayaal oo mar kaleeto iyo new season ayaa noo bilaabo doono caawa maadaama uu bilaabanayo horyaalka Premier League waxaan saadaali doonaa kooxda ku guuleysanayso iyo lixda kooxood kooxda geli doonto kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta lixaad saa hore kuula wadaagay adiguna qaybta hoose nala wadaag fikirkaada hore loo yiri war la qabaa xiise ma lahan haddii aan guda galo saadaalinteyda booska lixaad waxaan geeyey xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham oo aan la soo wareegay macallin cusub ee ciyaartoy dhowr la isku keenay waxay u baahan yihiin inay isla qabsadaan horyaalka Premier League waxaan ka geliyey xilli ciyaareedka cusub ee bilaabo doono kaalinta lixaad kaalinta shanaad waxaan geeyey kooxda Man United xilli ciyaareedkan saxiix aad iyo aad u muhiima la soo wareegtay sida Mbumo iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Mateus Cunha labadoodaba waxay wataan 12 gool ayay ka dhaliyeen xilli ciyaareedka hore kooxooda ayay u dhaliyeen sidaa daraadeed Sasco ayay la soo wareegeen kooxda Man United xilli ciyaareedkan waxaa loogu fadhiyaa inay isbedel badan keenaan meeshii xilli ciyaareedka hore 15 ku dhameysteen inay kasoo wareegaan oo qaybaha sare ee soo galaan sida daraadeed Man United waxaan u saadaaliyey kaalinta shanaad kaalinta afraad waxaan u saadaaliyey kooxda Man City sababtoo ah Man City waxay la soo wareegeen ciyaartoy dhowr ah Rodri ayaa ka dhaawacmay ilaa 2 bilood ayuu ka maqnaa doonaa Rodri sida daraadeed Man City oo difaacooda dambe wili ash uusan ahayn balse khadka dhexe iyo weerarka iska soo dhiseen waxaan ku saadaaliyey inay geli doonaan xilli ciyaareedka cusub kaalinta afraad kooxda kaalinta saddexaad aan geeyey waa kooxda Chelsea ku guuleystay Club World Cup xilli ciyaareedka horena ku dhameystay kaalinta afraad ciyaartoy dhowr ah oo talent inay la soo wareegeen sidaa daraadeed kooxda Chelsea oo weliba ciyaartoydii hore u joogtay khibrad ama experience u yeesheen horyaalka Premier League sidaa daraadeed Chelsea waxaan geliyey kaalinta saddexaad kaalinta labaad waxaan geeyey xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool sababtoo ah Liverpool ciyaartoy dhowr ah oo muhiim u ahayd ayaa ka tagtay sida Arnold iyo ninkii ahaa Diaz sidoo kaleeto waxaa ka geeriyooday ciyaaryahankoodii muhiimka u ahaa markuu binji ka soo kaco gool muhiim u dhalin jiray Jota sidaa daraadeed kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan waxaan geeyey kaalinta labaad horyaalka Premier League kaalintiisa koowaad waxaan u saadaaliyey aniga ahaan kooxda Arsenal oo la soo wareegatay booskii ugu muhiimsanaa ee ka maqnaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay booskaas oo ah nambarka 9aad Yogres ayay keeneen kooxda Arsenal weliba qadka dhexan waxay ku soo dareen Supermande Arsenal oo la soo wareegeen dhowr ciyaartoy ayagana sidaa daraadeed kooxda Arsenal ayaan u saadaaliyey horyaalka Premier League inay ka geli doonaan kaalinta koowaad sidaasna ugu guuleysan doonaan horyaalka intaas ku soo gabagabeynaa muuqaalkayga adigana qaybta hoose nala wadaag fikirkaada maxay kula tahay ra'yigayga miyaa ka duwan tahay adigana ra'yi kale miyaa wadataa qaybta hoose nala wadaag inta kulmi doona muuqaalka xiga waa adigoo muuqaalka agsaara sii sheer gareeya saaxiibada la wadaaga pageka hadduu follow ku ahayna follow soo dhaada sidaas iyo nabadgelyo